عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرن جنال كيغا مركا لسو دوادا إن آدي آدا ومهسنتهين داوشada meel kasto aad joogtaan iyo weliba si kasta oo aad daawanaysaan waa jimco 14ka bisha 10aad sanadka 2022 maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago sheekh caan ah oo si weyn looga yaqaano guud ahaan caalamka Mareykanka iyo magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo magaciisa la yiraahdo Dr. Sheikh Ahmed Yemani magaciisana uu yahay Ahmed Sheikh Ahmed ayaa waxa maalnimadii shalay maxkamad lagu soo taagay magaalada Columbus ee gobolka Ohio arinta sheekhan dad fara badan ayaa waxay la xiriirinayaan arintii ka dhacday gobolka Minnesota oo lacagtii la isdaba mariyay laakiin arintaasi lama xiriirto arintan waa arin ka gooni ah oo arintaasi sheekh ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa jirtay sanadkii 2020 xilliga coronavirus uu jiray in subaxyada salaada subax la dukaday masjidka la yiraahdo Ibn Taymiyyah oo ku yaala magaalada Columbus oo Soomaalidana ay u taqaano masjidka Moog in ciidamada kala duwan la arkay hal mar iyagoo halkaasi weerar ku soo qaaday isla markaana masaajidka gabi ahaanba hareereeyay oo gudaha u galay baaritaanna ku sameynaya arintaasi 2 sano ka hor ayay dhacday marka arinta sababta baaritaankaasi arin la xiriirta ayaa sheekhan marka dacwadiisa ay socotay isla markaana maxkamadan lagu soo taagay Sheikh Ahmed Yemani wuxuu caan ku ahaa bar YouTube ayuu lahaa oo sheekooyin kala duwan oo Soomaalida ka dhaxdhacay iyo ducooyinka iyo barnaamijyo diini ah uu soo galin jiray dadku si weyn ay u yaqaanaan caalamkana safarro ayuu meel kala duwan uu ku tagi jiray haddaba maxay yihiin marka waxyaabaha sheekhan lagu haysto oo sheekhan lagu eedeynayo sheekhan horta shalay markii maxkamadda la soo taagay ayaa waxa uu qirtay dambi ah in isdabamarin lacageed oo lacag uu masaajidka Moog amaba Ibn Taymiyyah uu lahaa in sheekhu uu isdabamarin ku sameeyay isla markaana sidoo kale uu ka been sheegay guryaha dadka dawladda ay ka bixiso oo section 8ka loo yaqaano sidoo kale arintaas inuu ka been sheegay gabasho dhinaca lacagaha canshuurta la celiyo sanadku markuu dhamaadana in uu sidoo kalena arintaasi ka gabaday oo canshuurtii loogu talagalay in uu celiyo uusan celinin inkastoo aan la faahfaahin inuu gabi ahaanba canshuur uusan bixinin iyo in canshuurtii loo baahnaa uusan bixin faahfaahin dheeraada laga bixin Sheikh Ahmed markuu 43 jir ah isla markaana degan Gahana waa meel kamid ah xaafad dadka Jewishka ama Yahuudda ay ku badan yihiin sida Soomaalida ay tiraado isla markaana ku taala magaalada Columbus ayaa shalay maxkamad federaal waxa uu ka hor qirtay in lacago isku gudbin sharci darro ah uu sameeyay isla markaana lacag gaaraysa ilaa iyo $50,000 oo jeeg ah uu isagu isku qoray xilli uu ahaa maamulaha iskuulka Ibn Taymiyyah ama masjidka Moog oo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio masjidka waxa la yiraahdaa Ibn Taymiyyah Masjid and Islamic Center waxa loo soo gaabiyaa ITMIC ayaa loo soo gaabiyaa waxaana Soomaalidu ay wadada Moog Road ayuu ku yaalaa laakiin Soomaalidu masjidka Moog ayuu u taqaana marka arintaasi lacagtan jeega uu isku qorayo $50,000 oo isagu isku qorayo waxa ay dhacday ayaa la leeyahay intii u dhaxaysay sanadihii 2015 iyo sanadkii 2019 sida uu sheegay xeer ilaaliyaha magaciisa lagu magacaabo Kenneth Parker oo shalay maxkamadda ka hor cadeeyay markii sheekhan maxkamadda la soo taagay Sheikh Ahmed marka oo masaajidkaasi shaqaale ka tirsan ahaa intii u dhaxaysay sanadkii 2009 ilaa iyo sanadkii 2019 ayaa waxa la leeyahay masjidka ayuu lacag ka xaday waa sida warbixinta ku qoran anigu ma ahan mid aan sameeynayo waa sida warbixinta ku qoran isla markaana waxa uu iska bixiyay ayaa la leeyahay kaar credit card oo lahaa lacag lagu lahaa ayuu iska bixiyay baabuur gaar ah ayuu iibsaday sida xeer ilaaliya Parker oo sheegay waxaana sidoo kale si tartiib ah uu u kordhinayay lacagta uu isdaba marinayo sanad kasta waxa 4500 ay ka soo bilaabatay ayaa la leeyahay intii u dhaxaysay 2005 4500 ay ahayd waxa ay u gudubtay 2018 ilaa iyo $21,000 in lacagahaasi masaajidka uu sheekhan ka qaadanayay oo isagu jeeg isku qorayay sidoo kale laga soo bilaabo sanadkii 2014 ilaa iyo sanadkii 2020 sheekhan waxa la leeyahay sidoo kale waxa uu ka been sheegayay guriga ay bixiyaan Columbus Metropolitan Housing Authority lacagta waxa jirto dadka income-koodu uu yar yahay
dowladdu dadka haweenku waxay codsadaan section 8 wax la yiraahdo marka dowladda ayaa lacag ka bixinaysa qofkaasi waxa uu leeyahay lacag badan ma shaqeeyo income badan ma sameeyo sidaa darteed dowladda ayaa guryahaasi ka bixinaysa marka gurigaasi ayuu deganaa lacag intaasi la egna sheeqan waa uu sameynayay marka macnaheedu waxay tahay sida sharciga ah qofku hadduu lacag badan sameeyo macnaheedu waxay tahay guri waa uu kiraysan karaa oo guriga waa iska bixin karaa laakiin sheeqan isagoo lacag fara badan sameynayay ayaa haddana waxa uu ku jiray guri dowladdu ay ka bixinayso waxyaabaha lagu haysto ayay sidoo kale ka mid tahay waxyaabaha kale waxaa ka mid ah xilligii coronaviruska uu jiray in uu apply gareeyay lacagtii unemploymentiga oo dadka aan shaqaynin ay qaadanayeen weliba lacagtaasina waxaa la leeyahay waa uu helay inta uu lacagtaasi apply gareeyay ayuu haddana lacagtaasi dowladdu ay siisay marka guryaha raqiiska oo dowladdu ay bixisana waxaa la leeyahay waa uu ka faa'iidaysanayay sheeqan isagoo lacag sameynayay marka waxay xeerlaalayaashu ama dacwadoogayaashu waxay sheegeen in sheeqan uu ka been sheegay lacagta rasmiga ah ee soo galaysay isla markaana uusanba u qalminba gurigaasi dowladdu ay ka bixinaysay inuu isagu dego oo dad aan lacag samaynin lacag badan aan samaynin oo income aan soo gelin loo baahnaa in gurigaasi ay degaan waxyaabaha sheeqa uu qirtay amaba lagu soo eedeeyey ayay ka mid tahay marka arrintaasi ayadoo jirta waxaa la leeyahay sidoo kale sheeqan iyo xaaskiisa waxay bangigooda ku shubteen lacag gaaraysa $235,000 intii u dhexaysay sanadihii 2014 ilaa iyo 2018 xilligaasi uu ahaa maamulaha masjidkaasi isla markaana inkamkiisa caadiga ah oo soo gala sheeqa sanadkii waxa ku sheegi jiray in ay tahay $18,000 taasina waxa uu ku guul daraystay ayaa la leeyahay marka in lacagaha soo galaya sheeqan oo sida runta ah uu uga run sheego waa waxyaabaha sheeqan lagu soo eedeeyay isla markaana warbixinta sida aan hore idinku sheegayba sheeqan dambigan waa uu qirtay shalay markii maxkamad federaal magaalada Columbus lagu soo taagay Sheekh Axmed marka waxaa lagu amray in masjidkii uu siiyo uu u celiyo lacag gaaraysa $37,400 in masjidka Ibn Taymiyyah oo sheeqan u celiyo isla markaana waxaa la leeyahay waxa uu mutaysan karaa 25 sano oo xabsi ah ayuu sheeqan mutaysan karaa 20 sano oo kamid ah waa lacagta isdabamarinta uu sameeyay iyo sidoo kale 5 sano oo been abuurka arrimaha sidoo kale arrinta beenta ah oo sheequ sheegay marka arrintaasi ayaa sheeqan lagu eedeynaya marka sida hadda muuqata isla markaana waxa ay dacwadoogayaashu ay sheegeen sheeqan hadda inuu dambigaasi qirtay isla markaana sidoo kalena laga yaabo in xabsigaasi intaasi la eg uu mutaysto Sheekh Axmed marka waxa la leeyahay lacagta uu ka qaadanayay masaajidka Ibn Taymiyyah laga soo bilaabo sanadihii 2015 ilaa 2018 lacagaha uu isagu isiinayay sanadba sanadka ka dambeeya waa ay kordhayeen waxa ay ku bilowdeen 4,500 waxa ku soo xigtay 11,000 oo sanadkii 2016 uu qaatay waxa ku xigtay 12,900 uu qaatay sanadkii 2017 waxa ku xigtay 20,000 uu qaatay sanadkii 2018 sida xafiiska xeerlaaliyaha uu arintaasi uu cadeeyay sidoo kale waxa lagu amray sheeqan sida idin sheegay lacagtaasi inuu bixiyo xabsigiisuna waxa uu noqon karaa 20 sano oo xabsi 20 sano oo xabsi ah iyadoo sidoo kale dacwadaha dhinaca federaalka ee lagu soo oogay sidoo kale 5 sano oo ku mutaysan karo ugu yaraan ayaa la leeyahay in arintaasi been abuurka uu sheegay marka guud ahaan waa 25 sano lacagta unemploymentiga waxa la leeyahay xilligii coronaviruska oo dadka shaqo la'aanta la siinayay sheeqan waxa uu codsaday 9 jeer ayuu codsaday lacagta unemploymentiga oo dadka shaqo la'aanta la siinayay intii u dhaxaysay bishii Agosto ilaa iyo bishii October waa bishii 8 ilaa iyo bishii 10 ee sanadkii 2020 sheekhu waxa la leeyahay 9 jeer oo kala duwan ayuu lacagtaas unemploymentiga oo dadka shaqo la'aanta la siinayay oo sheeqan codsaday isla markaana sidoo kalena waxa uu lacag ka helayay YouTube-kiisa muuqaalada uu soo geliyo oo waxa la leeyahay ilaa $4,000 ayuu ka sameynayay muuqaalada YouTube-kiisa uu soo geliyo bishii sida sharciga ah markaad YouTube leedahay Mareykankana aad ku nooshahay adresskaada waa inuu YouTube-kaada kugu qoran yahay sanadku markuu dhamaado YouTube-ku waraaq ay ku soo dirayaan lacagta intii aad sameysay marka waa inaad canshuurta ku xareysaa laakiin haddii aad ka been sheegto macnaheedu waxay tahay waxa aad ka dhuumatay lacagtii canshuurta ahayd oo sanadku markuu dhamaado aad celin lahayd marka waxa la leeyahay sheeqan YouTube-ka lacagta uu ka sameynayay sidoo kale waxay u muuqataa in uusan report garaynin teeda kale unemployment ayuu codsaday ayaa la leeyahay sheeqan lacag intaasi la eg ayuu sidoo kale uu qaadanayay dhinaca markaan eego marka guriga oo sheequ ku jiray
sida muuqata hadda waxa uu ilaa iyo ku dhowaad muddo 6 sana ayuu shiiqu wax uu ka been sheegay ayaa la leeyahay guriga uu deganaa oo dowladdu lacagta ay ka bixinaysay mana ahaynba in uu gurigaasi oo kale uu deganaado maadaama lacag uu sameynayay waxa uu sheeganayay 18,000 sanadkii inuu sameeyo isla markaana isaga iyo xaaskiisa waxa la leeyahay bangigooda waxa ay ku shubteen lacag gaaraysa $235,000 intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa iyo 2018 marka dacwadaasi sidaasi ayaa u qirtay ayaa la leeyahay sheeqan muddadaasi sanadahana waxa uu ka been sheegayay gurigaasi uu deganaa iyo sidoo kale uu lacag ka qaadanayay masaajidka uu markaasi director ka ahaa ama maamulo uu ka ahaa YouTube-kiisana lacag uu ka sameynayay marka arinta Minnesota lacagahaasi dadka lagu haysto oo lacagta caruurta loogu talagalay iyo sheeqan arintiisa isma qusayso sida darteed dad fara badan ayaa isoo weydiinaya sidaasi ayaan waxaan ku gartay sheeqa waxaan leenahay waa u duceynaynaa ilaahay ka qafiifiyo xabsigaasi 25 sano maadaama uu dambiga qirtay waxa laga yaabaa in xabsigiisa laga qafiifiyo laakiin waxa ay Soomaalidu ay tiraada qayladii xagee ka yartay masaajidka marka meeshii loo carari lahaa hadii qayladii ay ka yartay waxa waa dhibkeeda ay leedahay sheeqaas waxaan leenahay ilaahay u gargaaro sheeq si weyn loo yaqaan ayuu ahaa marka Mareykanku waxaan kula hadii hal mar ay dabagal kugu sameeyaan waxaa jirta in 10 sano ka hor xitaa meeshii ay ku kaadisay ay soo ogaan karaan mar haddii dabagal ay kugu sameeyaan marka sidaa darteed waxaan u duceynaynaa sheeqa adinkuna u soo duceeyay waxaa sidoo kale jira markii howlgalkaasi 2020 ciidamadu ay ka sameeyeen masjidka waxaa sidoo kale jirtay sheekh la yiraahdo Sheekh Aadam oo isaguna sharcigii helitaankiisa ku dhibanaa in markii baaritaanku uu bilowdo uu wadankii iska aaday isla markaana uusan dib u soo laabanin ilaa haddana uu wadankii uu iska jiro markii uu arkay xaaladdu in aysan wanaagsanayn aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada waa idinka mahad celinaya meel kastoo aad joogtaan iyo waliba si kastoo aad daawanaysaan intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo